السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة قالية كسود وهذا تحنيهني أفري تونات يكون هبيني فضلا هدية نوع سبت سود سبسكرايب شار جنبلير كان رقمه سي كوسو جارا وحول بأن صادق ندر بديبا هدية هورين ولا جوتينا لايك سار سينا شير جري أو ذاك أصحاب تابا كان ديو فكر كيف يعني كنا سوق رقابته هو سيكومنتيا مركز دعوة كذي أنا جن سي أي دي جرين ونقطه ما السنة هدرنا دعوة شو مركي هاوين كيشان يتونات لجاري أي شارزة شكل سي ودي إذا أوتري مركي wiilkii ogolaaday hadalkii ayaan aad u farxay waana is soo raacnay ilaa aan ugu iimaanay kooxdeena oo sidee ii raadinayeen iyaguna daalay markay wareysteen ayaan ugu sheekiyay qisada dhacday iyo xaalka magaaladan aad ayayna ula yaabeen laakiin dibka dhacay wuxuu yahay gabdhihii walaalahay markay arkeen wiilka ila socdo quruxdiisa iyo inuu yahay wiil fiican ayay i xasideen iyagoo aad iga xumaaday aniguna dhankii wiilka aad ayaan u jeclaaday waxaanu sugnay intay daweeluhu isbedelayaan kadib markii daweelihii isbedeleen ay noqotay xilli la bixi karo ayaa yimid gabdhihii walaalahay ahaa waxaana ugu yiraahdeen wiilka maxaad rabtaa inaad ku sameeyso waxaan ugu jawaabay waxaa rabaa in aan ninka dhigto oo guursado noloshana ila qaybsado idinkuna waxa idinku wareejinayaa wixii aan hanti aan leeyahay kolkaas ay ogolaadeen balse waxa ay wiil ka xumaayeen inaan wiilkaasi quruxdu badan helay kadibna shaydaan ayaa u qurxiyay naftooda waxyaabo xun waxayna ku tashteen inay ka takhalusaan aniga iyo wiilkaba habeenkii dambe ayaa waxaa dhacday anagoo badda dhexdeeda ku jirna Baghdadna kaabi ku hayna ayaa aniga iyo wiilkii oo hurdnay inta ay noo yimaadeen ayaa labadeena badan ugu tuureen nasiib xumo wiilka dabaal ma uusan aqoonin oo isla meeshii ayuu ku geeriyooday لكن أنا قلنا سيبوداك وحن هلي أو قبصدي جب الواحة وحي مربى هلالكي بدا ميل يقو توران أيا مركي دم بحبت يقو تورين أنا قلنا نحسن آدنا ويابا كان حنفلكي ولا لها يكو كعين أيان وحن أركي أبي صدا وعدران كيالو لنكيين وصو أرديسا أبي صدا سيدال آد وفربضان أيا كم مخدي وحن إرياناي مسآت وين أبي صدي أيان كان حي وحن قلنا سيدنا عابيو كدب لا يحوين انت أنا قاتا أيان مسكي مدح كالفتي هلكي أيونا كبنتي كدب مركي أبي صدي بدبادي أيان ميل اسكو توري oon iska seexday maadaama oo aan aad u daalnaa cabaad markaan hurdo ayaan soo kacay balse waxaan arkay gabar aad u qurux badan oo agteyda fadhida markaan arkay ayaan xishood yara dareemay kadib waxa aan weydiiyay cid ay tahay balse waxay igu tiri alla ilowshi dhawida anigu waxaan ahay aweesadii aad badbaadisay wax yar ka hor waxaana ahay gabar jin ah maskii ariinayna waxa uu ahaa jin cadawigayga ah hadaadan ibadbaadin lahayna way dili lahaa laakiin waxaad ogaataa inaan soo ogaaday wax ay walaalaha kugu sameeyeen sidaas darteed waxa aan go'aansaday inaan ciqaabo anigoo ka dhigay laba waxaana ku soo celiyay markabkaagi iyo hantidaadii ilaahay ayaan kugu dhaarinayaa hadaa maalin kasta labada ay garaacin inaan ku yimaado ayaan sidooda oo kale ka dhigayaa waayo falka ay ku kaceen ma ahan mid loo dul qaadan karo markaan fiiriyay xeebtii ayaan markabkii ku arkay oo sida ay ii sheegtay oo halka taagan oo uu sugayo kolkaas ayaynu soo baxnay wixii maalinkaas ka dambeeyay maalin kasta labada ay walaalahayga ah waan garaacaa sheekadeeduna waa taas khaliifkii muslimiinta marka uu maqlay hadalkii gabadhii koowaad ayuu la tacajubay markaas ayuu gabadhii labaad ku yiri adigana muxuu yahay xaalkaaga iyo ushaan korkaaga ku taala waxa ay tiri gabadhii labaad khaliifkii muuminiinto aniga aabahay waxaan ka dhaxlay lacag aad u fara badan kadibna waan guursaday markaa muddo aan xaas ahaa ayaa ninkayga ii geeriyooday balse asigana waxaan ka dhaxlay lacag aad u fara badan maalintii dambe ayaa waxa dhacday aniga gurigay iska joogo ayaa waxa ii timid islaam waayeel oo duruuf iyo diif ka muuqata hadaad xaaladeeda aragtana aad u beerjileeci lahayd waxayna igu tiri gabadheedii waxaan haystaa gabar aan awoonnimo ku soo koriyay maantana waa arooskeeda halkaana qof i qiimeeyay oo arooskeeda la soo qayb gala waan ka waayay ee waan ku duceynayaa gabadheedii ee arooskaas ka soo qayb gal markii hadalkaas tiri xaalkeedana aan arkay ayaan u beerjileecay waana ka ogolaaday waxaana ku iri caawfiidka ayaan ku imaanayaa habeenkii markii la gaaray ayaan dhowr hablood oo adoomaha hor u sii watay oo inta aan libisanay sii baxnay markii gurigii aan tagnay ayaan la yaabnay qaabkii oo gurigaas u dhisnaa waa guri dhammaantii lagu sharxay xariir iyo dahab wax kasta oo qurux lehna ay hoos yaalaan aniga oo yaaban ayaan gurigii galay kadibna gudaha ayaa nala sii gudbiyay muddo yar kadib ayaa waxa ay soo gashay gabar aad u qurux badan waxaan ugu tiri ku soo dhawaaw gurigeyga markaas ayaan gabadhii wareystay waxaan ugu tiri aan runta kuu sheego islaanta halkan kugu soo wacday walaalkay ayaa kuu soo diray runtii markii ugu horeysay ee walaalkay ku arkay ayuu ku jeclaaday wuxuuna doonayaa inuu ku guursado sidaas darteeda ayuu islaantaasi duqda kugu soo dirsaday marka maadaama aagayaan aad tihiin oo isguursan kartaan ma ka aqbalaysaa codsigiisa ah inuu ku guursado aniga marka
markaan hadalkaas maqlay oo aan dareemay inaan qasigii ku dhex xanibanahay ayaan ku yidhi waayahay ee wiilka walaalkaaga ah. kolkaas ayaa ilbaabkii waxaa ka soo galay wiil quruxdiisa aad yaabayso, wuuna islaamay. kadibna wuxuu ugu yidhi aniga marow inaan ku qasbo, jecel ayaan kuu qabaa, waxaanse rabaa adoo raali ah inaan ku guursado, ee raali ma ka tahay? kolkaas ayaan ku yidhi raali ayaan ka ahay. wuxuu ugu yidhi inta aan ismeersan ka hor waxaan rabaa inaad hal shay iga ballan qaado, kaasoo ah inaanan qof kale iga doorbidin, ee ma iga aqbalaysaa shardigaygaas? waxaan ku idhi haa. kadibna waxaa noo soo galay wadaad iyo 4 markhaati ah. isla meeshii ayaa meherkii iyo arooskiiba ka dhacay. wiilkii muddo bil ah ayaynu isqabnay, waxaana ku nooleen nolol aad u macaan aadna u farxad badan. maalintii dambe ayaan ka codsaday inaan suuqa adeeg u doonto, wuuna i fasaxay. kadibna waxaan is soo raacnay islaantii duqda ahayd, waxayna ii geysay dukaan uu leeyahay wiil dhalinyaro ah kaasoo haya alaabta ugu fiican ee suuqa taala. adeegii u baahneen ayaynu dalbanay. inta uu adeegayay ayay islaantii duqda ahayd waxay i ammaanaysay wiilka. waxaana ku idhi islaantii maxaad igu ammaanaysaa wiilkan? waadba ogtahay inaan xaas ahay, aniga halkan waxaan u imid inaan adeegto. adeega markaan dhammaystana halkan waan ka tegayaa. kadib markuu adeegii noo dhameeyay ayaan lacagtii u taagay, balse wuu diiday inuu qaato. waxaan ku idhi maxaa dhacay oo aad lacagtan u qaadan la'dahay? wuxuu ugu yidhi aniga wax lacag ah kaama rabo, alaabtaanna hadiyad ahaan ayaad u qaadanaysaa, waa haddii aad iga ogolaato inaan hal mar ku shumiyo. waxaan ku idhi aniga xaas ayaan ahay oo waa lii qabaa, mana igi suurtoodo inaan sidaa yeelo. kadib waxa ugu yidhi ama alaabteeda ayaan ceshanayaa ama sidaan kugu yidhi ii yeel, ikhtiyaarkan adiga ayaa leh. kolkaas ayay islaantii duqda igu tiri alaabtan oo dhan qaado oo waa alaabta ugu fiican, suuqan qashin ayaa ka buuxa, hal mar oo uu ku dhunkadaana waxba kaama dhibi mayso. sidii islaantii igu qalqaalinaysa inaan yeelo ayaa markii dambe yeelay. kolkaas ayaan xijaabkii dhinac iskaga rogay oo aan dhawankayga u janjeeriyey si oo ii dhunkado. laakiin meeshii aan dhunkasho ka sugayay qaniyo ayaan kala kulmay, weliba waxa ay ahayd qaniyo aad iyo aad u daran ilaa aan ka suuxay. cabaar kadib markii aan soo miiraabay ayaan arkay anigoo dukaankii dhex jiifa, dukaankuna dusha ayuu igu xirnaa, waxaana i kor joogay oo ii dul taagnaa islaantii duqda ahayd. waxa aan dareemay walbahaar iyo murugo aad iyo aad u daran. markaas ayay duqdii igu tiri soo bax aynu meeshaan ka tagnay, aniga ayaa ku daweynayay. markii gurigii yimid ayaa ninkeygii arkay dhaawacii igu yaala, aad baan u xanaaqay. wuxuuna igu yidhi dhaawacan yaa ku soo gaarsiiyey? waxaan ku idhi maadaama uu suuqa cariiri ahaa ayaa oor xaawo u waday, mid ka mid ah xaawadiis ayaa daanka ii gashay, sidaas ayaana dhaawac igu soo gaaray. kaas ayuu igu yidhi waxaan u dacwoonayaa qaadiga magaalada si uu suuqan cariiriga ah oo maalin kasta shilalka sawayo si oo wax ugu qabto. waxaan ku idhi qaadka aniga ayaa leh ee iska daa, laakiin wuu iga diiday. markaan arkay inay ka go'an tahay inuu u tago qaadiga magaalada ayaan runta u sheegay. kolkaas ayuu aad u xanaaqay, wuxuuna amar ku siiyey qaar ka mid ah addoommadiisa inay i xiraan. halkaas ayuuna igu xiray. kadibna waxa uu soo qaatay seef aad u dheer asiga oo doonayay inuu kurka ii gooyo. markaas ayaa waxa u soo gashay islaantii cajuusada ahayd, waxayna ku tiri gabadhan wax dambi ama aynan samaynine ee iska cafi korniimada aan ku soo koriyo darteed. sidii u tuugaysay ayuu markii dambe ka ogolaaday, laakiin wuxuu ku yidhi waan cafinayaa balse ciqaab daran ayaan marinayaa. wuxuuna amar ku siiyey mid ka mid ah addoommadiisa inuu garaaco garaacis daran. sidii la ii garaacayay ayaan miir doorsoomay. kadibna inta ay soo qaadeen ayay meel cidla igu tuureen. aniga oo aad u xanuunsan ayaa magaaladeedii ku soo laabtay. kadibna waxaan la kulmay gabadhan oo labada ay wadata, waxaana iga wada sheekaysay qisadeeda, waxaana wada karaysnay gurigan ayadoo gabadhan saddexaadna nagu soo biirtay. wax kasta oo aan u baahanana way noo soo iibisaa ilaa ay kala kulantay wiilkan xamaaliga ah. kadibna waxaa dhacay wixii dhacay oo intaa wixii ka dambeeyana waad ogtihiin. markii khaliifkii muuminiinta ee Haaruun Rashiid ee hadalkaasi maqlay ayuu aad la yaabay. kolkaas ayay Shahrazad ogaatay in la gaaray subaxii, waxa ayna ka aamustay hadalkii u banaanaa. halkaas ayaynu ku soo koobaynaa taxniyeeni maanta. inta aan ku kulmi doono qaybta xigta waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.